Ankara waxay isku aragtaa xaliif aysan Soomaalidu ka maarmin dhexgalka arrimaha gudaha ayna go'aansatay 6 sano ee la soo dhaafay waxay heshay heshiis tiro beela oo nuquladooda aan helnay hayeeshee falcelinta ay kala kulantay dhinaca bulshadu si weyn ayay u fahmeen hadda habdhaqankooda oo ka leeytay kii hore ee dalalka dariska ay u sameeyeen jireen loona eeday heshiisyo abadiya oo saameyn yeelanaya amniga ilaa khayraadka diin ee dalka taamanaya cidna ayna hore ugu dhiiran ayay ka heshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukunkiisa muddo dhaafka oo ilaa maanta aan faahfaahin ka bixin waqtigan kala guurka Rajab Tayyip Erdogan iyo xukunkiisu waxay dareemeen dhexda uga jiraan go'doon siyaasadeed taasoo ku riixday inay fagaarayaasha siyaasadda gudaha dhex galaan oo isku dayaan inay dantooda ku dhex badbaadiyaan dhexgalka mucaaradka ilaa madaxweynaha ay sida xooggan u garab istaageen 4 sano ee la soo dhaafay laakiin diidma ayaa ka soo laabatay waxaana la isweydiinayaa Turkigu maxay walaaca oo haatan dareemeen timidan waxaynu ku eegaynaa 6 arrimood oo hadda ka muuqda habdhaqanka Ankara aysan ku xirnayn oo ay doonayaan inay dhammaan garabyada la macaamilaan tan waxay ka laftay in ku xigeenka hay'adda sirdoonka oo ah shakhsiga uu Erdogan kalsoonida badan ku qabo gacantana ku hayay galkii Syria loo diro magaalada Muqdisho kulamo loo arkay kuwa dhiig qaadida ayuu la yeeshay mid ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo guddiyo farsamo oo dhinacyada siyaasiyiinta diidan qorshaha fiila Soomaaliya dooda ugu xoog badan ee Turkigu la kulmayeen ayaa ahayd in saacad hogaamiyaasha qaarkood ugu sheegaan inay gudcur gudayaan sida ku cad xoos qorayada kulamada oo ay ragtay Geel Media Turkidu ma helin natiijada ay uga xisaabtamayeen fadhiyada mucaaradka u badan siyaasiyiinta saami qaybsiga la wadaaga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo ay si weyn dhinacyada Turkidu ay isku xijinayaan sidoo kale wada hadal ay isku dayeen in la yeeshaan dhinacyada dawlad goboleedyada diidan habka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mashruuciisa doorashada u karkaranayo iyo jihada dalkana uma suura gelin sabab la xiriirta inay wadaalan yihiin dhinaca madaxweyne Xasan Sheekh oo qayb ka mid ah dawlad goboleedyada ama labada Puntland iyo Jubbaland labadaba ay duulaan ku qaadeen Jubbaland raas Kamboni ay uga soo adkaatay isbardiyeelid hambulan oo aan dhab ahayn saraakiisha sirdoonka Turkiga ee tagay Muqdisho waxay u sheegeen hogaamiyaasha mustaqbalka qaarkood inaysan gaar u wadanin Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharax kale oo qarsoon toona waxay aad uga gubteen in la sheego in dawlad kale oo ah dalka Qatar iyo iyagu ay galka Soomaaliya si khaldan u akhrinayaan ayna yihiin fuliyaasha mashruuc aysan agaasimo ka ahayn taasoo doodaha qaarkood ka dhigtay mid adag sida ku cad xusuuxorka kulamada laga duwaan galiyay oo aan helnay Ankara ma jeclaysan doodaha uga yihiin xubnaha muqaaradka la yaqaan qaarkood oo si aan gabasho lahayn ugu eedeeyay inay dhex galaan arrimaha gudaha deefteedana yaqaano halkaas marka la aado in Turkiga iyo Qatar ay isku dayeen cayilinta xubno gaar ah shaki ma leh oo laba iskuma diidana qaarkood waxay soo jeediyeen dhismaha madal kale oo ka madax bannaan tan golaha mustaqbalka ee mucaaradka in la sameeyo taasoo ay maamulkeeda uga jeedaan inay taageero uga helaan xubnaha ay riixayaan laakiin sida ay waaqac uga helgari kartay lama garanayo waana doonis kale oo dhinacyada sheeye ka leeyihiin isku dayga dhexdhexaadin aan dhab ahayn laba ajande oo aan kara lahaydba waa ku guuldareysatay sida xaqiijinayeen dawladii aad ugu dhow dhinaca Turkiga maysan jeclaysan joojinta golaha mustaqbalka oo si cad dhexdhexaadnimadooda u duray una sheegay in kaligood aan lagu aaminin karin galka wada hadalka ay yihiin dawlad jilicsan ayna tahay in lagu soo daro dalalka reer galbeedka xubnaha Turkidu qaar ka mid ah waxay mucaaradka ugu gardhigteen sida oday dhaqameed Soomaaliya taasoo si cadaysay aragtidii bilowga xubnaha golaha qaarkood ay ka qabeen dhexgalka Turkiga Ankara niyad sami uma arag talaabada mucaaradka ah inay khasab tahay wada hadalada lagu soo daro safiirada afarta awood leh gaar ahaan Mareykanka iyo Ingiriiska iyadoo ku eedeeyay siyaasiyiinta mucaaradku inay ka hiilinayaan oo xilligii ay gaarka reer galbeedku waanta u wadaan aan iyaga loo yeerin markoodana lagu khasbay soo fariisinta safiirada kale taasoo ay ku sheegeen mid lagu bahdilay doorka Turkiga ee dhexdhexaadinta laakiin xubnaha golaha mustaqbalka waxay ku doodeen in Ankara iyaduba haybada xilli hore iska qaaday fashilka labaad dhaqaale xawilaada ila waradii sugan ayaa u sheegay lamid in Ankara bilowga dhexdhexaadinta kaligeed aysan lahayn oo ay dawlad kale oo Carbeed galkan la waday iyadoo la doonayo in xubnaha mucaaradka qaarkood lagu cadaadiyo in loo ballan qaado dhaqaale ilaa dhismo siyaasadeed oo aan dhab ahayn taasoo ay si weyn u fahmeen xubnaha qaarkood halka dhinacyo kale oo ku dhacayna ay hadda garowsadeen inay dhaamiyeen fuusta gobol aan sal xirnayn ayna arkeen tallaabooyinka iyaga looga dhigayo kuwa dhinacyo kale ku xiran doodii ahayd in Turkigu kaligiis uu sumcad leeyahay oo Soomaalida siyaasiyiinta ilaa shacab ku rabaan dhexgal uu sameeyo heshiisna dhexdhigay dhinacyada isdiidan sidaana lagu kala baxo waa dhicisowday oo golaha mustaqbalku waa diideen ku dhicidda dabina siyaasadeed ku cayilinta xubno dhawaan gala iyo ku ruuxidda aragtida fiila Soomaaliya oo ay hore uga maagteen cabsida Turkigu ay hadda wajahayaan walow Turkigu aysan lahayn dhaqaale la mid ah kan dalalka Carabta oo ay doorashooyin ku farageliyaan kuna saameeyaan haddana cabsida ay ka qabaan inuu ku soo baxo hogaamiye aan jeclayn aragtidooda
dibna u eegay heshiisyada xisaab-la'ida loo xaabshay ayaa soo dadejiyay inay khubaro sirdoon oo foolaad u yahay sargaalkii maamulay galarhkii Liibiya Ciraaq ilaa Syria loo diray Muqdisho tanina waxay dirtay laba fariimood tan koowaad waa in Ankara ay yaqiinsatay in waqtigii aaran ku dhamaaday oo hadda ay la kulmayso loolan adag oo dibadeed ilaa fircilinta gudaha oo dadweynuhu fahmeen doorkeeda taasoo dhalisay inay isku dayaysay gaaridda waxa ay ugu yeertay aagaan waxba laga qaban karin laakiin shaki ma leh in hogaamiyaasha dibadjoog ay ku khasban yihiin dib u eegis heshiis kasta oo la galay xataa haddii uu yahay mid u fiican Soomaalida tan labaadna waa ishardiga kala dhaxeeya xulafooyin kale oo ay isku hayaan mandiqada Liibiya Syria ilaa bariga dhexe oo ay doonayso in loolankooda ay ka fogeyso ciidda Turkiga saldhigna ay uga dhigto Soomaaliya iyadoo cidda dhibaatada aysan ahayn muwaadiniin Turkiya hirgelinta saldhigyada gacmeed kuwa laga tijaabiyo gantaalo guuxooda ka dheereeya intuba waxa ay noqonayaan afa Soomaaliyada koonfurta si weyn ay ugu dhibaatoon doonto Turkigu miyay xaqiiqsan Xasan Sheekh Maxamuud aysan dib u iibgeyn karin saddex fadhi oo sirdoonka Turkidu la yeesheen dhinacyada mucaaradka ilaa qaar kamid ah saraakiil u shaqeeya dawladdu waxay sheegeen in madaxweynaha saxiyada badan ay ka heleen Xasan Sheekh Maxamuud uusan fursad badan oo doorasho xor loo tartama uusan ku soo bixi karin ama haysan waqtigan ka shaqeyntoodii ku haynta xukunkana ay hadda la kulmayso mucaaradada xooggan walow ay kooxda dawladdu sheegeen inay ka adkaadeen saami qaybsigooda laakiin taas waaqaca dhabka maaha ugu dambeyn Ankara sanado badan oo magaceedu ahaa mid Soomaalida dhexdeeda sumcad iyo qadarin ku leh hadda taasi waa dhamaad waxaana ficilladooda laga akhriyay habdhaqan la mid ah kii hore dalal badan ay u eedeen dadaalkoodii ugu dambeeyay oo ay ku doonayeen magaca ku dhaqaana mucaaradku waa diideen inay kaligood door yeeshaan oo dhexdhexaadin laga aqbalo labada musharax ay isku dayeen inay isku bedeshaan tabar talo iyo taya midna ma hayaan taasina waxay tusinaysaa in dadka Soomaalidu aysan ahayn sida looga akhrinayo fagaarayaasha